kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal waa habeenimo Khamiis ay soo galayso 19 bisha labaad ee Febraayo sanadka 2020 qodobada aad caawa ku daawa doontaan barnaamijka bandhiga mudiirka waxaa qayb ka ah faraanti ka lumay 40 sano ka hor ayay heshay qoraalkii ku xardhanaa oo kaalin mug leh ka ciyaaray sidoo kale caawa waxaan idin haynaa daawadayaal haweeney saygeeda kili ugu deeqday dhowr sano ka hor oo hadda dalbatay in uu u soo celiyo maxay tahay sababtaasi barnaamijka bandhiga mudiirka ayaad ku daawa doontaan sidoo kale waxaan idin haynaa daawadayaal caawa ka shaqee su'aalo xisaabeedkan si aad bilaash uga dukaamaysato supermarket ku yaala New York qodobkaasna soo faahfaahsan ayaynu idin haynaa daawadayaal sidoo kale daawadayaal waxaynu idin haynaa waxa geeriyootay canugtii duqda ahayd waxay dhalatay 8 sano ka hor da'deeduna waa 80 jir dhankii la yaabka ayuu qayb ka yahay qodobkaasna waa daawa doontaan hadduu eebweyne ogolaado sidoo kale daawadayaal waxaa daawa doontaan qodobadana ka mid ah tababar ku saabsanaa ableynta dhirta oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambaleelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan faalo inooga reeb daawadayaasheena waxaynu ku wargelinaynaa in barnaamijka ciyaaraha ee janalka Xareed Media ay ka daawan jireen labada habeen oo kala ah habeenka Arbacada soo galaysa iyo habeenka Jimcaha soo galaya in la bedelay oo isbedel oo ku yimaaday dhanka iyo waliba habeenadaas habeenka Arbacada soo galaysa sidiis ay ku daawan karaan daawadayaasheena balse isbedelku wuxuu ku yimaaday habeenka Jimcaha ay soo gal jirtay ayaynu isbedel ku sameynay ka oo aynu u bedelnay habeenka Sabtiga soo galaya ayaynu u bedelnay marka daawadayaasheena habeenka Sabtiga soo galaya ay barnaamijka kala socon doonaan iyo waliba habeenka Arbacada ay soo galayso kaas oo aynu ku falaqeyn doono ciyaaraha ugu dambeeya ee laga ciyaara horyaalada qaarada Yurub waliba tartanka Champions League ayaynu xog ku saari doonaa kan Yurub liiga kulamadaas ayaynu ugu soo baahin doonaa hadduu eebweyne ogolaa marka daawadayaasheen sidaas ha ula socdaan waynu ku mahadsan yihiin qaabka ay nala jaan qaadaan had iyo jeer waa tahay daawadayaal markana waxaynu gudagalaynaa barnaamijkeena qodobka ugu horeeyo ayaynu eegaynaa dhankay waliba la yaabka ayaan ku bilaabaya faraanti ka lumay 40 sano ka hor ayay heshay qoraalkii ku xardhanaa ayaa kaalin mug leh ka ciyaaray shaki kuma jiro in nolosha ay ka dhacaan arrimo yaab badan waxaan maqalnaa qof ay soo gaartay boosto loo soo diray 10 sano ka hor ama fariin dhalo la giliyay oo biyaha badda la raaciyay sanado ka hor iyo arrimo badan oo kale oo la yaab leh laakiin arinta qabsatay Dibara Makina waxay ahayd arin yaab badan inaan faraanti waayo 40 sano ka hor oo magaalo Mareykan ah uu kaga dhexlumo kadib laga helo kaymaha Finland waa arin aad u yaab badan waa arinta qabsatay Dibara oo hadda jirta 63 sano waxay weyday faraantigeedii qalinjibinta ee si khaaska ah oo markii dambe ay isguursadeen xilliga oo ay wada dhigan jireen iskuulka Portland ee sanadkii 1973 sida ay qortay jariidada Bangor ee maalinlaha ah Dibra waxa uu faraantigu kaga lumay gudaha iskuulka xilligaas oo ay arday ka ahayd iskuulka sare ee Morris markii ay muddo ka soo wareegatay ayay arinta faraantigan iska ilowday nin cilmi baare ah oo dadka macdanta qoda ah
ayaa waxa uu ka helay faraantiga isagoo ku aasnaa god 20 sentimitir. waa markii ay ka soo wareegatay 40 sano. faraantiga ayaa waxaa iska lahaa ninkii qabay Dibora ee hadda geeriyooday, kaas oo ay la socotay xilligii ay dugsiga sare dhiganaysay iyo waliba waqtigii jaamacadda. kadib way isguursadeen. waxa uu geeriyooday sanadii 2017. waa markii ay isqabeen 40 sano oo ay wada noolaayeen. Dibara Makina waxay tilmaantay inay oohin la dhacday markii uu faraantigu soo gaaray gurigeeda oo ku yaala Boronsik iyadoo boosto loogu soo dhiibay isbuucii hore. waxay tiri waa arrin saameyn badan. dunidan aan ku noolnahay ee xaaladaha adag ay ka jiraan, waxaa ku nool dad wanaagsan oo dadaal ku bixinaya sidii ay dad kale ku farxad gelin lahaayeen. waxaan u baahanahay dad badan oo la mid ah. haweeneydu waxaan leedahay dunidan aynu ku noolnahay waxaa ku nool dad wanaagsan oo mar walba ku dadaala inay dad kale farxad geliyaan. waxaynu u baahanahay hadda in aynu helna dad ayaga la mid ah, maadaama faraanti 40 sano ka dhumay uu ninkan macdanta dhulka ka baara uu soo helay. sababtoo ah qof murugaysana oo 47 sano dhan oo maxaa lahaay faraanti ka maqnaa oo hadda loo keen, marka murugtiina ka baxda waa la dareemi karaa marka weliba farxad uu dareemayo. waa tahay daawadayaal, weli barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawanaysaane. markaan qodobadeena kale ayaynu sii eegaynaa. haweeney u dhalatay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Mafis Erdogan ayaa maalmihii la soo dhaafay qabsatay warbaahinta iyo baraha bulshada ee dalkaas kadib markii saygeeda ay ka dalbatay in uu u soo celiyo kili ay hadda ka hor ugu deeqday isagoo xanuunsan. haweeneydan iyo saygeeda oo lagu magacaabo Ahmed Erdogan ayaa aqal galay sanadkii 2006. waxaa dhowr sano kadib xanuunsaday saygeeda oo laga qabtay kiliyaha. sanadkii 2009 ayaa isbitaal ku yaala dalka Turkiga waxaa la seexiyay Ahmed Erdogan, waxaana dhaqaatiirta ay ka dariyeen xaaladiisa caafimaad. waxayna ku taliyeen in uu u baahan yahay qof kale oo kili u bixiya si noloshiisa loo badbaadiyo. waxaa markiiba u soo istaagtay xaaskiisa oo ugu deeqday mid ka mid ah kiliyaheeda. haweeneydan ayaa badbaadisay saygeeda, waxaana taasi ay keentay in uu caafimaado Ahmed. hase yeeshee horaantii bishii Abriil ee sanadka 2019 Ahmed Erdogan waxay xaaskiisa sheegtay in uu guur qarsoodi ah la galay gabar ay ehel yihiin oo uu ka tagay iyada oo u haysa wiil 11 sano jir ah. balse Mafis Erdogan ayaa ka carootay sida ninkeeda uu ula dhaqmay. waxayna ka soo muuqatay barnaamij ka baxa telefishinka Ahber ee dalka Turkiga iyadoona dalbatay in ninkeeda uu u soo celiyo kilidii ay ugu deeqday dhowr sano ka hor. waxaan siiyay kilideyda sababtuna waxay ahayd in aan nolol wadaagno, ayay tiri Mafis Erdogan oo la hadlaysay telefishinka Ahber. waxay intaa raacisay in ninkeeda uu khiyaanay, taasina aysan ahayn wax ay filanaysay. haweeneydan ayaa sidoo kale sheegtay in qoyskiisa aanay siinin kilida markii uu u baahnaa, balse iyada ay nafteeda u hurtay. hase yeeshee arrinta dad badan ka yaabisay ayaa ah in saygeeda Ahmed Erdogan uu xaqiijiyay in wax walba oo dhex maray isaga iyo xaaskiisa, wuxuuna yiri maba ahaynba in ay isiiso kilideeda xilligaas. Ahmed Erdogan ayaa sheegay in xaaskiisa guri uu lahaa ay kaga bedelatay kilida ay siisay, sidaas darteedna aysan ahayn wanaag ay u fashay. labada dhinac ayaa midka kale ka eed sheegtay. labadooda oo ka soo muuqday barnaamijka ka baxa telefishinka Ahber oo looga hadlo dhibaatooyinka qoysaska ayaa haweeneydan waxay sheegtay in dhib badan ay u soo martay, balse sidaas aysan ka filanaynin saygeeda. canugayga wuxuu galay qalliin, aniga ayaa raadsaday lacagta qalliinka oo cidna ma weydiin, qof i taageerayna ma lahan. dhib badan ayaa u soo maray saygayga, ayay raacisay hadalkeeda.
Mafis Erdogan oo ka sheekeynaysa wixii ay kala kulantay nolosha ayaa sheegtay in wixii ka dambeeyay markii ay kilida u bixisay Ahmed ay xaalad caafimaad la soo darisay. haweeneydan oo ilmeynaysay iyadoo si toos ah looga wareysanayo telefishinka Haber ayaa sheegtay in ay ka dhaadhici weyday waxa uu ku sameeyay saygeeda. waxaan la daaladhacayaa sidii aan hal kili ugu noolaan lahaa iyo korinta canugiisa. waxaan siiyay noloshayda haddana waxaan rabaa in uu kilideeda ii soo celiyo ayay raacisay hadalkeeda. sharciga dalka Turkiga ayaa dhigaya in haddii qofka uu ku deeqo xubin ka mid ah jirkiisa kadib marka la dhameeyo qalliinka uusan mar kale dib u sheegan karin maadaama qalliinka ka hor la kala saxiixdo heshiiska bixinta. haweeneydan ayaa haatan waxa ku adkaan doonta inay dib u hesho kilideeda maadaama sharciga aysan waafaqsanayn. waxaas hadalkeeda laga dheehan karaa sida ay uga xun tahay qaabka ninkeeda ay sheegtay in uu ula dhaqmay. waa tahay daawadayaal wili barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawanaysa. dhankay waliba qodobadana kale hadii aynu sii eegno daawadayaal waxaa la leeyahay ka shaqee su'aal xisaabeedkan si aad bilaash uga tukaamaysato supermarket ku yaala New York. su'aal xisaabeed la weydiina hadii aad ka shaqeysid si bilaash oo lacag la'aan dukaankaas kaga adeeganaysa marka micnaheedu weeye. haddii aad su'aashan ka jawaabto si sax ah waxaad haysataa 5 ilbiriqsi oo wixii aad rabto aad ku qaadan karto. ninka iska leh ganacsiga sida uu ula ciyaaro macaamiisha waxay soo jiidatay dadka isticmaala baraha bulshada oo ay aad u hadalhayaan dukaankan. qofka ayaa waxaa la weydiinayaa su'aal haddii uu ka jawaabo wuxuu haystaa 5 ilbiriqsi oo wuxuu jecel yahay ku qaadan karo. tusaale ahaan waxaa lagu weydiinayaa 10 lagu dhuftay 10 laga jaray 50 waxaa loo baahan yahay isla markii inaad hore ka sheegto jawaabta ku soo baxaysa. haddii aad fursad u heshid in aad jawaabta si ilbiriqsi ah kaga jawaabto waxaad helaysaa 5 ilbiriqsi oo aad wax rabto ku qaadan karto adigoo waliba aanan lagu qasbaynin. sidoo kale waxaa lagu weydiin karaa 7 lagu dhuftay 7 lagu daray 10 jawaabta soo baxaysa. haddii aad haleeshidna si la mid ah 5 ilbiriqsi ayaa fursad u haysataa oo aad waxa jeceshahay ku qaadan karto. xisaabiyaha Ahmed Alwan oo 20 jir ah ayaa ciyaartan waxa uu bilaabay bishii Janaayo. arrintan ayaa noqotay mid soo jiidasho leh oo dad badani ay hadalhayaan. waan ku aqaanaa ma kula wadaagi karaa ciyaar xisaabeed. dadku way ku soo kalahaan dukaanka ay leeyihiin qoyska Alwan ayaa lagu yiri warbixinta. waxaan doonayaa inaad adiguna sidaan oo kale samayso. xitaa anigu waan u baahanahay. Alwan waxa uu furay bar uu ku maalgeliyo qorshaha dukaankiisa. waxaana uu sheegay inuu doonayo inuu ku taageero dadka tabarta daran ee garab istaaga u baahan. arintani waxay wax ka bedeshay xiriirka bulshada aan la lahayn oo wax badani ay iska bedeleen. dad badan ayaa dukaanka yimaada si ay iskugu dayaan inay ciyaarta ka qayb galaan laakiin arintu kaligay iguma xirna ee bulshada ayaana la wadaagta. qof walba wuxuu yimaada dukaankaasi wuxuu isku dayaa inuu ciyaarta ka qayb galo si uu asina wax u helo. waa tahay daawadayaal qodobadana kale hadii aynu sii eegnana qodobkeena dhankii waliba la yaabkan dib ugu laabanayna. caawana la yaabka aad u fara badan yihiin. waxa geeriyootay canugtii duqda ahayd waxay dhalatay 8 sano ka hor da'deeduna waa 80 jir. bal qodob cajiib ah weey sababtoo waxaa la leeyahay waxay dhalatay 8 sano ka hor da'deeduna waa 8 sano jir. qof 8 sano ka hor oo dhashay meeqsan jir oo ku noqon kara marka adiga 8 sano leemayno. marka 8 jir sidoo ku noqota bal aan u gudagalo warbixinta dhankii la yaabka ayaynu caawa aad diirad u saarayna hadda. warbixintu waxay u dhacaysaa sadatan gabadha yar ee reer Ukraine
gabadha yar ee reer Ukraine ee Anna Sakido ee 8 jirka ah ayaa waxay noqotay ilmihii ugu yaraa ee u dhinta cudurka asaasaqa ama cimri degdega cudurkaas oo ay la dhibaatoonayaan 160 qof oo ku nool daafaha kala duwan ee dunida. Anna waxaa ku dhacay cudur hiddo ah oo naadir ah oo dhanka cilmiga loo yaqaano Progeria. waxay u akayd inay 8 jir tahay halka da'deeda rasmiga ah uu yahay 8 sano oo kaliya sida uu sheegay website-ka Folin 24. miisaanka canugtan yar waxa uu gaarayay 7 kilogram waxayna u dhimatay inay fariistaan xubno badan oo xubnaha jirkeeda ka mid ah maadaama ay xubnahaasi duqoobeen physiology ahaan. dadka cudurkan uu ku dhaco halkooda sano waxa uu u dhigmaa 10 sano oo dadka caadiga ah lafaha dadka cudurkan qaba si gaabis ah ayay u koraan. waxa leeyahay dadka cudurkan uu ku dhaco halkooda sano 10 sano u dhigmaa marka 10 sano marka 10 lagu dhufto 8 waxay noqonay 80 marka gabadhan 8 sano hayay halkii sano uu sii kordhay marka 80 jir sidaas ku noqotay marka halka ay si xoog ah u koraan xubnaha kale ee jirka oo si dhaqsi ah u duqooba sida tirokoobyada lagu ogaaday dadka cudurka asaasaqa ah u dhintay waxay sababsadeen dhiig furan dhanka maskaxda ah iyadoo dadka cudurkan uu ku dhacay noloshooda ay ku noolaadaan curyaannimo iyo paralysis. qofka dhiig furan oo maskaxda kaga dhaca laga yaabaa qofka marka dhuu wuxuu ku noolaanayaa noloshiisa curyaannimo iyo waliba paralysis. cilmi baaris cusub oo Holland lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday in Progeria uu ku dhacay 2 milyan oo qof laakiin dadka diiwaan gashan ee la og yahay ay tahay 160 qof oo kaliya. cudurkan waxa leeyahay cilmi baaris ee Holland sameysay 20 milyan qof ayuu ku dhacay leeyihiin laakiin dadka diiwaan gashan ee la og yahay waxa weeye 160 qof oo kaliya baa la leeyahay. waa tahay daawadayaal qodobadana kale hadii aynu sii eegnana tababar ku saabsanaa ableynta dhirta oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. tababar ku saabsanaa ableynta dhirta ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. hadii aynu eegno warbixintan tababar ku saabsan ableynta dhirta oo ay ka qayb galeen 14 jaamacadood oo dalka ku yaala ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabay Machadka Dhaxal Reeb waxaana bixinayay Professor Ahmed Mu'min Warfa ayaa waxaa ka faa'iideystay macallimiin badan oo jaamacada wax ka dhiga. xafladii gabagabada seminaarka ayaa waxaa ka qayb galay madaxda jaamacadaha iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada. ugu horeyn waxaa furitaanka tababarka ka hadlay maamulada jaamacadaha ka faa'iideystay tababarka iyo macallimiinta tababarka ka soo qayb galay. waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Simad Daahir Xasan Cabdi Daahir Carab. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Maxamed Maxamuud Xasan Bidey oo ah rektorka jaamacadda Banaadir wuxuuna la ballamay dhalinta da'yarta in ay ka faa'iideystaan barnaamijkan Dhaxal Reeb oo looga baahan yahay inay gacan ka geystaan. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay Ustaad Cali Cabdu oo ah macallin jaamacadaha dalka wax ka dhiga. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay Professor Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah guddiga agaasimka Machadka Dhaxal Reeb iyo Professor Ahmed Mu'min Warfa oo bixinayay tababarka. ugu dambeyntii waxaa xiritaanka ka hadlay Ismaaciil Yuusuf Cusmaan oo ah agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo waliba Cabdi Axmed Baafo oo ah agaasimaha xarunta Dhaxal Reeb. waa tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka bandhiga mudiirka qodobkana ugu dambeeya ayaynu gordhow idiin soo qaban doonaa. waa tahay daawadayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta falanqaynta ciyaaraha. xubintan oo aynu uga gol leenahay in aynu ku falaqeyno ciyaaraha Champions League habeenada laga ciyaari doono qaarada Yurub. habeen walba oo khamiis ay soo galayso barnaamijka bandhiga mudiirka ayaad ku dhax daawo doontaan haduu eebo weyn ogolaado oo aynu ku soo qaadan doono ciyaaraha dhacay iyo kuwa dhici doona. hadaynu ugu galno ciyaaraha dhacay natiijooyinka ka soo baxay. Atletico Madrid ayaa guul dirqi ah ka gaartay Liverpool xilli
Erling Haaland uu guul ku hogaamiyay kooxdiisa Borussia Dortmund. Atletico Madrid ayaa guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Liverpool garoonkeeda Wanda Metropolitano kadib markii ay kaga adkaatay gooli eber kulanka lugta hore wareega 16 ee tartanka UEFA The Champions League. qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray gooli waxba oo ay ku hogaaminaysay kooxda martida loo ahaayay Atletico Madrid. daqiiqadii afraad kooxda Atletico Madrid ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana gooli waxba ka dhigay Saul Niguez. qaybta labaad marka dib la isugu soo laabtay labada kooxood waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo abuuray fursado badan oo gool loo filan karay. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo gabagabowday gooli waxba oo ay ku adkaatay Atletico Madrid kagana adkaatay kooxda Liverpool oo martay u ahayd garoonka Wanda Metropolitano. dhinaca kale kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay 2 gool iyo gool ku garaacday Paris Saint-Germain oo martay u ahayd garoonka Signal Iduna Park waxaana Borussia 2 goolba u dhaliyay Erling Haaland halka PSG uu goolka u dhaliyay Neymar Jr. kulamadaasi ayaa laga ciyaaray tartanka UEFA Champions League wareegiisa 16. haddii aynu eegno daawadayaal dhanka iyo waliba kulamada kale ee caawa laga ciyaari doono dhanka iyo waliba qaarada Yurub hal kulan oo baaqday toddobaadkeena soo dhaafay ayaa laga ciyaari doona kaas oo ah Manchester City iyo waliba West Ham United. hordhaca kulankan Manchester City iyo waliba West Ham United Sky Blue ayaa u baahan inay booskeeda labaad adkaysato iyo waliba Hammers oo ka cararaysa inay heerka labaad u laabato. kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa soo dhaweey doonta caawa naadiga West Ham United iyadoo doonaysa inay 4 dhibcood oo nadiif ah ka sanamarto naadiga kaalinta saddexaad kaga jirta kala sareynta horyaalka Premier League ee Leicester City. dhinaca kale haddii kooxda Hammers lagu naanayso ay ka fogaato guul darro ka soo gaarta caawa garoonka Etihad waxa ay taasi kaga filan doontaa in ay ka soo dhaqaaqaan booska looga laabto horyaalka oo ay farqiga goolasha kaga saramaraan naadiga Aston Villa. ogeysiiska ciyaarta tartanku waa England Premier League taariikhdu waa 19 February sanadka 2020 saacada ay bilaabanayso dheesha 10:30 habeenimo xiliga geeska Afrika garoonka Etihad Stadium garsooraha Kevin Friend oo u dhashay England. wararka kooxaha ayaynu eegaynaa daawadayaal daafacyada Manchester City Laporte Benjamin Mendy iyo John Stones ayaa dhamaantood dib ugu soo laaban kara caawa oo Arbaca ah naadiga Manchester City. Raheem Sterling oo la dhibaatoonaya dhaawac muruqa ah oo ka soo gaaray kulankii ay wajaheen Tottenham ayay u badan tahay inaan halis la gelin doonin kulankan halka Zinchenko uu ganaax casaan ah ku maqan yahay. xidiga kooxda West Ham Philippe ayaa tartan ugu jira inuu ciyaaro kulankan kadib markii uu garoomada ka maqnaa 5 kulan sababtoo ah waxa uu dhaawac ka qabay feeraha iyo waliba dhabarka. saxiixa cusub ee Janaayo Jarrod Bowen ayaa West Ham u safan kara kulankiisii ugu horeeyay laakiin ciyaarta waxa ay hoosta ka soo gashay oo ay degdeg ku tahay Yarmolenko kaasoo aan la filinaynin inuu caawa ciyaaro. xaqiiqooyinka ciyaarta hadii aynu markaan daawadayaal idin soo baahino Man City ayaa guuleysatay 10kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay wajahday West Ham United dhammaan tartamada. Man City ayaa ugu yaraan dhalisay 3 gool 8 ka mid ah 10kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay naadiga West Ham United dhammaan tartamada. kooxda Man City ayaa la garaacin 31 ka mid ah 34 kulan ee ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka Premier League. Sky Blue ayaa guuleysatay labada qayb ciyaarta qaybta hore iyo qaybta dambaba iyo waliba kulanka oo dhameystiran 8 ka mid ah 10kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la dheeshay tartamada oo dhan kooxda West Ham United. kooxda Man City ayaa dhalisay ugu yaraan 2 gool 7 ka mid ah 8deedii kulan ee ugu dambeysay oo ay ku ciyaartay garoonkeeda kulamada horyaalka Premier League. West Ham United ayaa khasaaro la kulantay 3dii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda horyaalka Premier League. kooxda West Ham United ayaa laga dhaliyay ugu yaraan 2 gool 3dii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League. shaxda macquul galka ah ee labada kooxood. Manchester City 4-3 ayaa ku ciyaar karaysa. goolaha Ederson ayaa u gali doona. Cancelo
Fernandinho Otamendi iyo waliba Walker difaaciyada ayay u camiri doonaan qadka dhexe waxa camiri doono Kevin De Bruyne Rodrigo iyo waliba ninka lagu magacaabo Silva ayaa qadka dhexe u camiri doona weerarka waa Jesus Aguero iyo waliba Riyad Mahrez ayaa u ciyaari doonaan dhanka West Ham ciyaarno West Ham qaab difaaciyada ay ciyaaraysa 4-5 ayay ku soo gali doonaan goolaha Fabianski Frederickis iyo Diop Ogbonna iyo waliba Criswell difaaciyada ay ciyaari doonaan Bowen Sokek iyo Rees Nobel iyo Snodgrass qadka dhexe ay camiri doonaan Antoniana waa uu weerarka ay u ciyaari doonaan natiijada ka soo baxdo barnaamijyadan kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh